beentii iyo baraangigii isdhooqdhooqii iyo shumiskii iyo isxabadgelintii iyo waxoo dhan horta waa soo dhammaadeen. sida muuqaalka hordhiciisa ku soo aragteen fanaanadii caanka ahayd ee Rasmirays waxay taagan tahay Cabdifatax Mucaashiq waxa kula joogay waa barangi ee guur ma jirin la hawla wala quwa oo shiiqii dhan oo la wacay ee nisuki mehrinaya barangi ma ahayd waa aragteen meherkooda qofka arkin hadda ka dabageena ila fiir muuqaalkan. Cabdifatax Axmed Bedel waxaan ku guuriyay oo aan kugu nikaaxay Rasmirays Cabdirasaaq Xuseen meherkeeduna yahay 100 garaam oo dahab ah. meherka nikaaxa iyo guurka 100 garaam oo dahab lagu meheriyay waana barangi warkan masawira maxaa adina 100 garaam oo dahab oo gabadha waa ku aqbal u leedahay iska bixiyay meherka kulay gabadhan guur barangi ma galo furiina barangi ma galo dabcan waa u jeedin shiiqana waa shiiq caan ah shiiq Maxamed Kinyaawi xafidahullah kulay fuusada waa loo reexay ninkan wax ka booga isleeyahay aroos barangina wiligiis ma meherin laakiin maanta tan sumcad dare ku noqonaysa haduu arko gabadhii dhan oo ninka lagu xiray inta soo fadhiisatay waxay taagan tahay 3 maalmood kadib sheekadan intaan kadib ma aamusi kari barangi ahayd ninkii muuqaaladiisa TikTok way ka daleeday asagina uu iska daleeday sheekadii way fashilantay. adduun waxaa joognaa barangi la iskula seexanayo inna lillahi barangi aabanin ina iskula seexanayaan isbuuc dhan dadkan isku dhigdhigay waa la isku dhuqduqay laabta la isgashinay kadibna shiiqana la wacay meher yar la dhigtay dadkii wayba arooseena dhahnay waa iska seexanay waa ka jiisanay hadda ayadii soo kicisa anaga hurdeeno war waxa wax ka jira ma lahan soo jeesta awrigi gaadgaad jir iska bula ah waxaan barangi waa ay taagan tahay la hawla barangi la isku aroosayo Sheekh Kinyaawi sameen ma aroosya baranki inuu sameeyo bilaw meheriya baranki inuu sameeyo miyu bilaw Sheekh Kinyaawi bal waa ina soo fariisato arintan ka hadasho sheekh sababtoo ah adiga laftiga shaki ayaa iga ka jira waan ka xumaa inaan sida dhoo laakiin meher baranki ayaa u maleeyaa meherka inuu ahaa aad iyo aad baan ni salaamaya noo gabadhan asalkeeda wax fiican ma sameey jirin fanaanadii ahayd Ilaahay soo hanuuniya leenahay hadeertaana aroos beenay dhigatay oo barangi ah shiiq oo caan ah way dambaajisay ayadana afkeeda ka sheegayso waxa aan ku dambaabay maahan waxa aan ayada ka maqlo la sheegoya Ilaahay horta u dambi dhaafo gabadhan wadada ku socoto wada halaagsan waaye awalay fan iyo qurun ku dhex jirtay haddana aroosidii iyo culimadii ay waxay ka keentay diinta inay ku dhadeesho war gabadhan laga qabsado social media way waalatay midkan kaleetana maseera ma ahaayo kala arag asagana soo u dhaqmaa ma fahmibo gabar ay hadda ka hor kala tageen oo xifaaltan kula jiraabo ha maseere hab Mrs Unsi ha ka maseere Rasmirays 100 garaam oo dahab dhab ha ku siiyo meher kadibna hal dhaw arooska barangi ahay wax barangi la ma jir gabadhan soo shiiq u bixiya waan lagu meheriyay neew gabadhan meherkeeda si adeena ku taala barangiidan arooska beenta ee muuqaaladii laga baxshay reactionka inta idin soo saari doona ila daawada hadda channel ku cusub tihiin nagu soo bir muuqaalkana inoo like garay